حيوان يا أخي dadka qaarna waan soo qaban karaa qaarna ma soo qaban karo laakiin sababta waxaan u maleynayaa inay tahay my god sababta waxaan u maleynayaa inay tahay invite-kaaga uma jeedo muuna walaale mushtaaq maxamed khadar faysal jaamac cabdi xukun ayaan intaasaa invite ii soo dirtay awe cali nuur awe no I don't see send invitation imaadan soo dirin uma jeedo okay qofka nama soo qaban karo uma jeedo wallahi cabdi xukunkana bal soo qabanayaa sugaad soo dalba waan soo dalb waa u jeedaa muna waan u jeedaa xataa hadda qof baa ii soo galay isaaq xuseen baa invite ii soo diray imadan soo diran walaale jar invite-ka oo igu soo dirso mar kale haddaad ii soo dirtay jar oo igu soo dir waxaan rabnaa aniga wax warkii ugu dambeeya haya anuu war badan ma hayo yaabanahay ba haddaan ku balowgay imaadan aragteene warxa ma soo qaban karaba kuwan noo soo inaa war badan haye arag same soo qabanaya arag same waa ku soo qabtay awow war arag same soo dhawow waan dhawahay maxaa qaar waan ku salaamayaa war arag same bal noo warran bal niyo horta aniga ii warran aniga anoo shaqo jooga yaa dad igu wareeriyeen telephone marka waan yaabay markaan shaqadii ka soo baxayna mobilekan fiiriyey text message badan baan arkay ay leeyihiin cabdi waa la dilay iyo wax noocaa tii wax maxaad war haysaa niyo waa sida la sheegayo waa geeridu ma jirto laakiin war lagama hayo laakiin markii qadadii maanta loo geeyey xaaskiisa iyo dumaashadii iyo hooyadii iyo habaryartii markay u tageen maanta ayaa waxay la kulmeen isagoo aad loo jirdilayo oo jaranjar laga soo tuuray oo aad loo qaraacayo kadibna ay la jiidayo badanna uu ka baxayo isaguna uu aad u dhawaaqayo maaragtay wax macnihii cidooda ka qabanaysana aysan jirin 8 nin baa aad u garaacaysay hawshaasina waxay soo kordhay xalay markii axmed shidi iyo ninka la yiraahdo mustafa ay yimaadeen magaalada iyagoo jiray hore jigjiga waxaan wacay oo la xiriiray qolyar jigjiga jooga madaxtooyada waxaa la ii sheegay inay ka dambeeyaan axmed shidi iyo mustafa okay marka labadaas ka dambeeya labadaas waxay u adeegsadeen Jawahar Maxamed maxaa cadeynaya inay ka dambeeyaan imaanshahan baa loogu maleeyay mise information kale laga hayaa iyo waxa kulmay booqasho ay booqdeen iyo dilkan macni taasa shakiga keentay way booqdeen isagoo caafimaad qabay arkeen kadibna waxaa dhacday in si xoon oo bila aadamnimada ka baxsan oo aan war laga haynin geeri iyo nolol in lagula kacay ma laga yaabaa iyaga laftigooda in lagu fashilinayo niyo dabcan ma garan karo laakiin iyagu inay hadlaan weeye iyagoo inay ka hadlaan iyagii baa jooga iyagii baa matalaya Soomaha waa uma maleynaya inay ka hadlayaan waxa weeye afayeenka dhinaa Ethiopia weeye waa ninkii warfaafinta inuu hadlo weeye oo dhaho anigu ka mid mihi warna kama hayo isagii baa booqday dilkiina muxuu bilaabay marka waxa weeye niyo xaqiiqada waxa weeye cabdi cidu dilayo wuxuu ku dili jiray gacantiisa isaga maartay soo xirin jiray isaga waxay jiray waxaan aaminsanahay in iyagu ay ka dambeeyaan loona adeegsanayo cadawga Oromo iyo Jawahar Maxamed abiye waxa laga hayaa inuu yiri anu cabdi waxba uma haysto wax awoodan leeyahay ma jirto wadanka ninka maamulo waxa weeye waa ninka la dhaho waa ninka la yiraahdo Jawahar cabdi waxa ku dhagan Jawahar Maxamed iyo lama labadaas ku dhagan labada nin baa ku dhagan labada nin baan awood wadanka haysta cid kale oo cabdi xidhay ma jirto maanta
okay waxay ugu marka dhagan yihiinna Soomaalinimo marka halkaas waxaa inooga cad markaas ra'iisul wasaaruhu inuusan awood badan lahayn meeshana crisis badan uu ka jiro yes ra'iisul wasaaruhu awood badan ma laha cabdina maanta hadduu awoodo wuu soo dayn lahaa ragga ku dhagan waa Jawaahir Maxamed iyo ninka la yiraahdo Lama Magarsa oo awoodii wadanka gacanta ku haya weeyo xaqiiqada waa taas ninka la yiraahdo Mustafa iyo Axmed Shide waxay ahayd hawshan inay iska leexiyaan oo ay hadlaan Mustafa uu hadli jiray Facebook ku soo qori jiray waxaa kulmay in xabsiga ay booqdeen cabdina sidaa loo galay anagu marka haddii cabdi maanta naftiisa la waayo de ragga loo haysto way is yaqaanaan okay aad iyo aad baad umahadsantahay informationka runtii informationka maan haynin information naga maqnaa buu ahaa aniga saaka saan gurigeyga ooga baxay dameereley dadka la xeer ma ahane mar dhaweytaan ba soo galay magarat waan ku garanay khawr mid kale si fiican baad taqaanaa Ethiopian gumaysigan dadkii ay ku bilowday baan ahaa anu adiga cabdisalaan anu adiga waan ku aqaanaa Allah u naxariistay waxaan xasuustaa aabaha baan xasuustaa maalinkii qabri daare isagoo weerar ku soo qaaday oo Tigreegu dilay baan xasuustaa mararka qaarkood waan qoslaa marka ay dadku ku dhahaan jaajuus Ethiopian tahay markay ku dhahaan waan qoslaa Maxamed Carab Khuri waxaan ogeynaa kale Maxamed Carab Khuri anoo tiga dhex taagan gabadhiisii baa la igu hortoogtay oo waxba dhihi kari waay I know wax badan oo xaqiiqa oo jira baan ogahay laakiin dadka la xoolahanagi in la qaatay baad ogeyd xoolahanagi in la qaatay baad ogeyd markaas waxay ku leeyihiin Tigray baa tahay xageen Tigray ka ahay war ma noqday Tigray dhib malaha don't worry about adiga ninka ku dhaha Tigray baa tahay Tigray baan ahay un ma nin aabihi nool yahay oo la yar xiray wax yar maartay xabsi yar galaba wuxuu ku leeyahay anu waxaan qabaa Allah u naxariistay aabaha waan ogaa geeridiisii markay Tigray u dileen xabadda ay ku dhufteen aad baan u aqaanaa si fiican baan u garanayaa family-giina dhibka soo gaaray waan garanayaa te waxa aad u dhimanayso ee lagu caayana wax kala maana waa un cabdi baa isku qolo tiidin wax kala ma aha very simple cabdi de ka waran khadar cabdi dhaqanka Soomaalida ba isku nooca ma garatay dhaqanka Soomaalida isku nooca aniga kula hadlaya dartay aniga waad ogtahay walaalkay ba aniga dartay 3 sano jir ogaadeen ugu jiray oo ku dhibaatooday sax maxaan la dhahaa cabdi baad isku qabinteedii baa la dhahaa sax ildigiisu si fiican macnaha waxa weeyaan marka inaga victims dadku dhan waa wada victims waxana waa shirqool gumaysigu uu sameeyay weey dadka in la isku wada diro oo dadku la isku wada kaco ma garatay oo adiga waxa laga rabaa inaad cudad qaado oo dadka oo dhan yuhuudna Allah ka dhigay inaad yuhuud soo kaxaysto si fiican in macnaha fiiri waxa jirto waxa la yiraahdo theory of displacement oo ah qaacidada barbixinta la dhaho divide and rule ka ma taqaanay in society-ga ama dadka meesha degan in la kala qaybiyo qayb ay gumaysiga u shaqeyso oo ay aaminto gumaysiga qaybna ay diido markii qaybta gumaysiga u shaqeysa la promotion lagu siibiyo qaybta kaleetana hadhow ay dhahdo maxaan anagu u dagaalamayna geeri balbal lacageysay dharagii iyaguna si ay isku dhiibaan exactly sidina way socotaa hadda maanta si fiican waxa weeyaan waa psychological warfare oo ah dadku dhan inay tartan galaan hadda wada aragtay oromana waa la amaanayaa Tigrayna waa la caynayaa Tigray waa la qolana oromay caayaysaa Tigray bay amaanayaan ennagiiba waxaan isku haysanaa oromo iyo Tigray isku haysanaa dadkeenii baa qabyaalada la kala xigay inaan qaarra ay Tigray u doodaan qaarra ay u doodaan oromada ay u doodaan wallahi waa xabaar weey maalin weytana waxaa la ii sheegay cabdallihii iyo cawliyahankiina inay axmaarada soo wadaan hadda ma garat sax waa ka cawliyahanki soo dhigay cawliyahankii axmaaradiina waxaa la ii sheegay cabdallihii inay axmaarada soo wadaan oo ay aadeen muxuu ahaa Debre-Zayd ay aadeen ma garat sax marka waa un
marka heerkaasa la gaarsiiyey heerkaa ma garatay marka aan yaro kaftame maxaana warniyo cawliyahanku geeska maxaana cawliyahanku waxaana li aan yaro kaftame waxaan cawliyahankii baan li cawliyahankii magaalada gees waddanka geeskiisa kaluu deganaa axmaariga uu dhabrazeed ku aaday goorma bartay baan li moogta anyway muhiimadda ujeeddadu waxaa weeyaan saaxiibkay baan la rabaa inaan la kaftame sam baa halka ku jire marka muhiimaddu waxaa weeye yani waxaan dadkan waa loo qayilay waa loo fekeray ma garat marka dadkan caqligooda iyo maskaxdooda saa loo kala qaybiyo si dhib yar baa lagu qabsanayaa resourcigana si dhib yar baa lagu qaadanayaa khayraadkana si dhib yar baa lagu qaadanayaa annaguna wax dadkuna dad ismaamuli kara ma aha and 90% boqolkiiba 90 anu saas inay ku dhamaanaysaa aaminsanahay 90% anu dadka inaan niyad jabiyo ma rabo laakiin waxaan arkaa sida ay dadku u fikirayaan caqli xumidoodaan arkaa khadrow laakiin niyo nin aqli badanna waa tahay nin social media magac kulana waa tahay inta badanna waxaan arkaa adigoo maarta waxyaalo fiican ka hadlaya laakiin adigoo maanta dhan sidaa wax u og oo waxyaabaha ka hadlayba haddana waxaad soo qortaa waxyaabihii maaragtay dhexdeena ka dhacay taasna waxay farxad u tahay cadowgeena marka waxaa ila quman cadowgeeno ayaa cadowgeeno waayo cadowgeena Ethiopia okay cadowgeena Ethiopia ma sir ka qarsoon ma jirto sir ka qarsoon ma jirto cadowgeena Ethiopia taas waa xaqiiqo laakiin waxaa jira niman waxaa jira iyagu wax ku raadsanaya niman dhama ku raadsanayo waxaa jira qoraalkaagii macnaha si kale u arka don't worry I don't care about theory waxa weeyaan theory qofka xanuunsan isaga dhakhtarka aada markuu dhakhtarka aadana wuxuu dhahaa anu waan xanuunsanahay buu dhahaa dhakhtarku markuu dhaho uu waraysta buu waxayaa dadkan waddanka ku noolay way xanuunsan yihiin xanuunkoodana waa in loo sheego inay xanuunsan yihiin ninka dhahaya dadka xanuunsan ha u sheegin inay xanuunsan yihiin dhakhtarku ma dhaha qofka ma xanuunsanaysa ma dhaho dawow siiya dadkani marka way xanuunsan yihiin si xanuunkoodana waa loo sheegi waana inay realistic aqbalaan xanuunkooda oo ah qabyaaladda jahliga hunguro xumida xaasidnimada soo ilaa ay kuwa ka waantoobaanna meel ma gaarayaan meel ma gaarayaan xaqiiqdu waxa weeyaan anigu waxaan aaminsanahay it's a short time waxna waa short time waa waqti gaaban codkaaga ugu gaabtay waxagaaga waxan waa waqti gaaban baan qori anigu aaminsanahay mustafaha cagtarkaas anu waxaan dhahaa hadda kula hadlayo anu waxaan dhahaa mustafahaas waqti hala siiyaan dhahaa sababta anu dhahaa mustafaha waqti hala siiyo waa maxay sababta anu dhaho waxa weeyaan we wanted to know waxaan rabnaa inaanu ogaano waxa uu keenayo iyo waxa uu soo wado iyo waxa uu soo kordhin karo anoo og maanta inuusan wax badan soo kordhinayna anoo og haddana waa inaan waqti siino sharcigaa nooca qofka bini aadamka ilmaha markuu dhasho uu ka baxay ninkii ilmaha yarka markuu dhasho ilaa 7 bilood 8 bilood lagu ama hidisadayaasha waxa la dhaho lama ogaan karo cudurrada dhaxalka ah uu qabo lama ogaan karo marka uu intaa gaadho yaa la ogaan karaa cudurrada dhaxalka ee aabihii iyo awowgii uu ka dhaxlay yaa la ogaan karaa qofku marka ilaa uu 7 bilood 8 bilood u gaadho ee uu ka baxo mataqaanaa xilligii uu ka baxo markaas jihadiisa siyaasadeed rasmiga aynu arki karaa laakiin anu waxaan qabaa maamulkan hadda meesha ka jira we give the time waan ogahay waqti badan inuusan sii jirin anu 90% waan garsanahay anu hadalka iga qora maanta boqolkiiba 99.9 meeqa ka dhiman
99.9% waxaan aanu aaminsanahay 99.9% maamulkaas inuusan waqti badan sii jirin on the way on the track sida uu track ugu jiro mataqaanaa uu jidku hadda ku taagan yahay iyo the complex situation ka ku hareeraysan ee siyaasadeed ee Ethiopia ku hareeraysan laakiin dadkeenu ma sugayaanba iyagii baa ka hor imanaya waxba laga yaabaa inuu wax wanaagsan noo qabto waxa laga yaabaa wax ka duwan noo qabto anyway muhiimadda aan leeyahay barnaamijkan soo gabagabeynayaa waxa weeyaan aynu ka fujignaano shirqoolada faraha badan ee la inoo dhigayo cadowgu inoo adeegayo inoo dhigayo qabyaaladda iyo waxaasna aynu mataqaanaa ii sheeg aynu iska ilaalino kulli dadkuna wada qabiilaystayaal oo laskama ilaalin karo baashanu dhiigay raacday aad baad u mahadsantihiin bal waxaan soo qabanayaa jigjiga member haddana soo qabanaya iyo khatar maxamed cumar iiso jigjiga man garaad aad baan kuu salaamay oo soo qabtay haddaad joogto sorry invite kaaga haddaan arkeen imadan soo sheegin dee ونو أد بنكو سلام يا سلام سرع عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قرأت long time سولو. for long time إيوه حالتك كور. الله هولو كتيرو وحامكو وتاد يقول تري هذين لا صو هذا اللي هذا يقول تري دقيقة قدام كوسو عنوان كوسو جيا. ورني ورالله هاو بقول كيف بقول كنت أوي. تيجي كان والله منك بوسير بالله عاوي عاوي. نيورت أد بنكو سلام يا وحوي نيو حتى هاي أد لو دقيستو. waxaan jeclahay dhageysigaagu inuusan u garbin daalimiyaasha ma gartay waa gartay daalimiyaasha raba inay hadda yiraahdaan wadankeena waa la haystaa oo ku dhahaya hadda wadankeena gumaysi baa haysta ayaa markay shalay dhex joogeen ay jijiye ku dhex baashaalayeen dadka xidhxidhayeen meena wadanka lama haysan miya maanta markii la xidhay kii waxa dhan u sameynayay baa nala gumaysanaya taas marka inaad runta u sheegtaan jeclahay oo aad ka qabatid marka adigu aad saa u galaysid ha u garbeen ku cadee nimanka qaar kula hadlaya waxa weeye waa nimankii aniga oo hadda kula hadlaya igu yidhi meydkiina intaan saa u warwarno ayaanu banaanka soo dhigaynaa wayna awoodeen inay saa sameeyaan ma garat wayna awoodeen inay saa sameeyaan xagga ilaahay un bay ka suurtoobi weyday that's why aan u dhaho language matters weligaa luuqadda hala ilaaliyo aan u dhaho ha marka haddii aynu maanta dhahno waa mahadsan tahay marka adigana waxa weeye horta intaad gebidhaci lahayd inaad hal meel doorataan kaa jeclahay ama inaad daalimiyaasha okay halkaasaan kaa dhex galo sanad garaad ay garaad anigu wixii jiraan ka hadlaa ma garatay sax the facts baan ka hadlaa aniga waxa weeyaan laakiin sheekada waddankeena ka jirtay ama annagana raac ama qoladaa raac anu waxa kuma shaqeeyo waa horaan raaci lahaa ma garatay qoladan waa horaan ama dadka lahaa ama aan noqon lahaa mataqaanaa nooc kale noqon lahaa waa gartay waxa weeyaan nobody will dictate for me aniga sida aan ku noolaanayo qof ii yeedhinayo ma jirto ma garatay political ideology-deedana garaad cid ii yeedhinaysaa ma jirto waa gartay laakiin the facts waxa anigu qolo walba waxay ku khaldan tahay sheegay adu isagan hadda ka baxay ninkaad hadda u jeedo waan garanayaa moogta haye ninkaad u jeedo waan garanayaa waxa weyn isagan hadda iyo adigaba shalay toona horta anaad wada dilaysaan idin la hadlaya labadiinaba you right you definitely right aniga shalay markaan u garbinayay daan eg fiiri haddana waan ku faraxsanahay garaad inaan labadiina idin kala dhexdhexaadinayo oo welibana isku rabo horta boqolkiiba boqol aad baad u mahadsan tahay eeg horta qofku waxa fiican markuu rabo inuu ceeb ka saliim noqdo
inuu intuu soo istaagay yidhaahdaniyo anigu waxaasaan ku qaldanaa wax ka fiican ma jiro صح ما هو صح ويا خلط إنه قف بني أنا قدرت intaan anigu soo istaagay oon shaarac dhex soo istaagan waxaan dhahay aniga ayaa u garbinayay geed yahay namaydan goyseen haddaana anigu qayb ka ahayn ummad yahayn anigu ma aanan wax dilin waxba ma jaajuusin wax ma xidhin laakiin dhaantadii un baan ka qayb qaatay anigu waxna ma dilin wax ma xidhin lacag kama qaadanin waan yara dhaantay waan iska yara dhaantayown حتى دانتدا dharka aan ku dhaanteynay anaa soo gadanayay leegama bixinayn ma garad صح marka inaad qofku dhibkiisa qirto waa qayb kamid ah xalka wuxuu dhib geystay waa sax weeye I agree with you 100% marka ninkii isagu wax dilayay wax xidhayay wax jaajuusayay dadka ku aflagaadoonayay weliba laaluush kaga qaadanayay inuu maanta victim iskaga ka dhigo wax laga dul qaadan kara ma okay hal arrin ma rabaan inaan ka soo ka bax arrin kale jirta arrinkan kale ku leeyihiin hebel waana la qaatay oo reer hebel baa naga qaatay miyuuna ahayn reer hebel qayb kamid ah ismaamulka Ethiopia mayna dawladda federaalka kamid ahayn waa kow laba meeshan Addis Ababa la joogo miyayna ahayn meeshii uu lahaa qalbi dhagax dawladda federaalka hoos jooga dawladda Ethiopia ka dhashay buu hoos jooga dastuurkaas hoos jooga wuxuu dastuurkaasi siiyo wuu heli ninkii lahaa Soomaa man qaldana ma wuu yiri xaqiiqo weey sax weey marka dastuurka Ethiopia ma hadduu dastuur kala noqday waa maya weligiis dastuurka aan buu ahaa ma overnight baa la bedelay lama bedelin overnight okay maanta anigu waxaan ka jeclahay inaan anaku maxkamad saaran lahayn haysan lahayn dadkii uu dhibka ku sameeyay adduunkan ugu jeclaan lahaa laakiin shakhsiyan haye waan ogahay aniga I agree with you 100% waxa weeyaan waxa aad sheegayso wax factis waa wax dhacay waa wax aan la dafiri karin adoo shakhsiyan cabdi xarigiisa sidoo aragtay iyo sida hadda loo galayo hal arrin baa jirta horta hal arrin meelna waxna waa propaganda waxna waa wax jira صح waxa propagandada halkaas aan iska dhigaynaa صح oo hebel waa la garaacay oo waa la tuuray oo waa la jirdilay oo halkaas aan iska dhigaynaa waxba kama jiro beenway matter of fact hadii loo garaacayo ma abaha iyo walaalka hortiisa lagu garaacay waa maya ma aaminsani waangatay I don't think so iska ma jirto ma la kulmay isagoo la garaacayo taas waa another case laakiin markii la arkay baa garaac lagu bilaabay aqli gal ma okay hawl kale macnaha inaysan suurtagal ahayn waa propaganda lagu kicinayo shucuur dad kale heegadii baa shaqaysanaysa raalli ahaw markaan eriga isticmaalayo heegadu dambiilayaal miyaan dhamaantood horta mise may heegadu 700 baa jiray oo gooni loo tababaray 700 waxa loo tababaray inay qalalaaso iyo propaganda iyo wax kala sii sameeyaan 700 afartan kamid ah waxay ahaayeen ranking dadka ugu sareeya okay garad afartankii kamidka ahaa ayaa mid kamid ah kula hadlayay qaar kamid la fadhiyaan afartankii oo ranking memberska okay waan ku soo qabanayaa saam sugade garad maxaa heegadii aan ku haysanaa baarlamaankii ma haystaanay heegadii baa loo dhiibay baarlamaankii waa ek heega marka lagu leeyahay dadna shaatiga waa lagu qasbayay dadna way ahaayeen waa ko nin walba meesha joogay dad baa shalay toleynta jeelka laga soo saaray isla maalinkii dar heegaa loo geliyay macnii waa qasab ujeedada heega laga lahaa wuxuu ahaa in ummadda dhan heega laga dhigo qayb yarna ay shaqaysato in ummadda dhan heega laga wada dhigo qayb yar oo kamidana ay shaqaysato oo 100 qof ah weli 100kii way joogaan lacagtii iyo spinning-kii bay hayaan calasow bay soo gaaraysaa nimankan kale halkan joogay soo gaaraysaa magaalada Minneapolis joogay soo gaaraysaa still that money is working weli muxuu ahaa Universal TV bay gaaraysaa that thing is working halka markaan dhigo dooda kale ah
anigu sideen u arkaa cabdi waxaan ugu jeclahay in cadaaladda ay Soomaalidu la hor keeni lahaa laakiin institution lagu keeni lahaa buu dilay kamuna tegin institution kamuna tegin xeer cadaalad lagu saari karo kamuna tegin ma isleedahay maamulka laftigiisa kililka ee hadda ka jira meesha iyagoo oo diidan arrin tension oo qabiil iyo waxaa diidan inay iyagu ay dhahaan dowladda Ethiopia anaga ha noo soo dhiibina ninka idinku haya waxa rabtaana ka sameeya inay dhahaan ma laga yaabaa hal su'aal oo kale waa su'aal fiican wey aad wanaagsan horta cabdi haddii inagu aan qaban karno oo haysan karno waan qaban lahayn macni ninka haddaynu haysan karnaba oo aynu isagu qaban karno imisaynu dhawaaqaynay imisaynu hadlaynay waynu iska qaban kari weynay ninka inaga dhahnay hayna loo qabto horta eedda inaga iskale nimanka hadda ilaa hadda Minneapolis iyo America iyo fiiq iyo qabdahar looga mudaharaadayana haddii jijiga la keeno maxaad u malayn waa la isku leyn wallah waa reality waa la isku leyn marka sidaas daraadeed baan ku leeyahay noloo haya garaacana waxaa rabtaan ku sameeyaa inay dhahaan iyagu may Ethiopia sideedaba Bashir Maqtal waa isku meel baad degantiin صح انت ادو تagto weydii 12 sano ma loo garaacayde weydii hada Bashir Maqtal haduu ha ku dhaho wali garaacay wali tirdili imaqal hadii uu ku dhaho waxba kama duwana teelayaasha ما بشير مقتل يا عبد واتو ديفرنت عبد نمان أورما يسهين waxay soo qabeen xarash weyn bay isku hayeen meediyaha oromada waa aragtay cadi waxa laga dhigay dhurwad dadka oromada cunaa laga dhigay marka masleedahay nimankii oromada ahaa nooca ahaa de cabdi wax walba ka suurtooday ana garaacaan wax walba waa ka dhici kartaa war oromo ma cabdi quraati sayeen may cabdi waxay sayeen tigreeb muxuu oromo waxay sayeen tigreeb qaar xabashi kamid ah dawlad haysatay ahayd deegaanka dhan cidaasa haysatay cabdi si gaar ah oromo u haysan kartaa ma jirto mana aaminsani innaka dawladda oromo maadaama ay tahay oo wasiiradeedu oromo yihiin oo u badan yihiin sidii kuwa tigreegu ugu badnaayeen unba inagu dawlad oromo ka dhigaynaa dawladdu waa dawlad Ethiopia ma garaad fiiri garaad meediyaha Ethiopia nimanka la yiraahdo tigreega meediya leeyihiin nimanka axmaarada meediya leeyihiin meediyaha oromadana meediya leeyihiin saddexda meediya markaad fiiriso cabdi isku si oogama hadlaan kuwa axmaaradu cabdi baba yaqaanaan ma soo hadal qaadaan laakiin meediyaha oromada Jawaahir Maxamed ha noqdo OMTV ha noqdo waxay ka hadlaan oo beertanaale ay ka hadlaan cabdi mar walbana cabdi targetkay saaran focuskay saaran taas waxay ku cadeynaysaa political dimension u dhaxeeya qoomiyadaha kale iyo cabdi iyo oromada u dhaxeeya inuu totally same scenario u samayn isku dhacdooyin uu sanahay ma ugaas waa saxsan tahay hal arrin baan rabaa inaan ka jaahil tiro ummadana ka jaahil tiro media marka la dhaho waxa jiro public media iyo private media tusaale hadda adigu media isticmaalaysaa aday private ku tahay adaa iskale xeer saxaafadeed iyo xeerka doonto mar oo adaa xeer u samaystay xeerka aad adigu u samaysatay cidda doontaad abaari kartaa saa doontaad wax uga hadli kartaa adigoo haddaad doonto cawaaqibta media raacaynin walow anigu aan ku kalsoonahay inaad raacdid walow aan ku kalsoonahay صح marka media oromo kan public ah kan Ethiopian television ah ee Ethiopia Oromia network ah ee Ethiopia hoostaga sida kan uu Ethiopia u hoostago mise kan uu Jawahar leeyahay iyo kan ay private Oromo leeyihiin labadaasi isku si u hadli maayaan kan markaynu fiirino Ethiopia caadiga ah wixii Ethiopia wasaaradda saxaafadda iyo warfaafinta ka soo baxa un bay kaga hadlaan si gaarana uma target garayaan si gaarana uga hadlaan kan laakiin private ka ah hadda isaga lacag dhibtay isaga samaystay xuduudaha inuu raaco oo xeerka media mooyee inuu wax kala sameeyo ma jiro taasi waa arrin kale
arrinka labaad ee raba inaan kaa saxa waxa weeye yes oromo iyo si gaara may waa akhyaarta ku jira dhe waa iga dambeeyo oo weliba haddaad doontaan ay jarjara waa caadi anu waa ogolahay laakiin wado garaad waxaana rabaa muhiimadda ugu weyn inaad soo koobto ani laftigayga muhiimadda ugu weyn baan soo koobaya waxay soo geliya meesha okay marka personally adiga waxa laga rabaa in horta marka hore victimkii 10 sano victimka ahaa iyo 17 sano ka horeeyay iyo 100 sano ee soo dhaafay victimyadooda inaad ka hadashid haddii hadda aad siiso meediadaada niman raba inay kiciyaan kacdoon shacab oo raba hebel waa la dilay hebel sana lagu sameeyay hebel Ethiopia haysata gumaysiba haysta shalayna gumaysiga u sacabatumay hadda way ka caddahay shaatigii gumaysigu soo gaday buu gacan yahay inaad labadaasi aad kala saarto inaad xusuusato markuu leeyahay waa la jir dilayay inaad ugu jawaabto imise hooyaa la jir dilay inaad xasuusto gabadhii 5 sano cuntada hor geenaysay jeelka ee ninkeeda aan arkin xataa isagoo la garaacayay arka jeclaan lahayd xataa ninkeeda oo la garaacay in aragto way jeclaan lahayd adoo waxaan rabtaa ma garat okay garaad adoo waxaan rabtaa inaad sida uga jawaabto afkaan ku hadlaan rabtaa inaad ii yeedhisaad rabtaa waxaan ku hadli lahaa Soomaa ما أنا كويري مرة بقول لكن أنا أروح النقطة حد أو very articulate. Okay هذا بني وأنقوه رما هلا رمان رما أنا أنقوه بصراحة. سوال بقى حد النقطة let me tell you one thing سوال بقى حد النقطة سوال بقى عدالة النقطة ضدك الصومالي وضد political culture justice يعني حد نما على ما why let me tell you وحنا سينا one reason بنسينا كويو 10 سنة بان اوغادي wax ka qoriyay iyo deegaankaas كويو 10 سنة baan waxaan ka hadlay human rights wadanka ka dhacaya كويو 10 sano ayaa hantidanadii aad ninkan aad sheegaysa ay ku boobeen waxaas oo dhan laba habeen kali ah yaa waxaan ku noqday nin qabiil aan ku noqday run baan ku sheegayaa So what do I expect to these people? لما هبين كليه. أيام محل كنا قط. dadkii 12 sano aan u doodayay aan lahaa dad ba dambi ba wadanka ka dhacay dibkaas aan dhacay kuwii dibku uu nagu wada dhacay isku leenka aan wada ahayn isku leenka aynu ka wada taagnayn yaa laba habeen gudahood waxay uga dhigeen nin kale oo qabiil kale ah ما تاس وادب كينو لنا تاس دب كينو لنا هوي والله reality بان كو شيغايay billahi tallahi ma garat صح وكويو 10 سنه كويو aan isku mabaadiida aaminsanay ما ورنتا way dhacda aniga oo weligay waxaan ogaaday marka in bini aadamku waxa la yiraahdo iyo dadkan wadanka ku nool iyo dadkan wadanka yimid inaysan lahayn wax la yiraahdo ideology iyo value inaysan lahayn baan ogaaday anigu sheekooda war ideology soo gar shariifkooda garaadkooda suldaankooda ugaaskooda kulli wax yar baan rabaa inaan ku sheego inaysan lahayn niman badan hadda adigu wada yaa taageersanay dawladdiida nin walba markii uu wadankii tagay uu jigjiga tagay cadaaladii uu raadinayay iyo horumarkii uu wadanka raadinayay wuxuu ka bilaabay inuu nin walba uu nin soo kaxeeyo oo abtigi wiil uu abtu yahay ama gabadh uu abtu yahay ama nin uu adeer u yahay uu dhaho wasiir ha laga dhigayo waxa laga dhigo waa dadkii nooca ah cadaaladda aan sugaynay ma garat okay may you are very good pointer sabada aan ku soo go ahead dhamayso cabdi dad buu laayaa dad buu dilaa torture buu sameeyaa iska daa wax kale US ambassador safiirka Mareykanka Ethiopia u fadhiyay baan la fadhiistay anoo ka hadlaya arrimaha genocide ee wadanka ka dhacay wiil ama gabadh aan waxna qorin waxna aan akhriyin intay telefoon ii soo dirtay waxay dhihi reer hebel baa tahay
معناها تصالها waxa kugu soo qaadanaya waxa weeyaan ma ihi hadda anu cidna ma eedeynayo laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego si walba oo qofku bini aadamku uu u dadaalo oo dalkan iyo dadkan ugu shaqeeyo dadkan iyo dalkan wax loo shaqeyn karaa ma aha waa garta wax loo shaqeyn karaa dad loo dhiman karana ma aha run baan kuu sheegayaa waa garta kuwa aniga aan isku reerka nahay xataa wax loo dhiman kara ma aha waa garta kuwa idinku isku reerka tihiin anu uma dhiman karo adna haddaad u dhimato ilaahay baa meeshaad ku dambaynay garta horta ugaas horta waad mahadsan tahay kuguma ogeyn kugumana aqoonin nin give up sameeya easily saa give up u sameeya horta kuguma ogeyn maya tiri give up ma aha tiri give up I don't horta maya aan dhamaysto you right markaynu society markaynu ka hadlayno society bulsho markaynu ka hadlayno deegaan markaynu ka hadlayno marka aad fiiriso Soomaali waa runta especially weliba kuweena markaad fiiriso waa runta ideology ma laha waa hunguri eg waxaa jiraada ideology driven by mind ideology driven by hunger ideology-ga hangarka amar wuu jiraa oo waxa keenaysa inaynu ku base garayno nolosheena dhan inaynu ku base garayno kaliya how hunger we are waa dib inagayna haysta wey tusaalan kaaga soo qaadi waxa laga yaabaa inaad ku dhigatay deegaankeena ilaa fasalka 8aad 9aad ama ka sii fogba deegaankeena markaad joogto ninku mar okay anu waan ku dhigtay ilaa iyo 9aad madana alam comprehensive secondary school harar baan yaan dugsi sare ku dhamaystay ma garatay gartay waa differently deegaankeena buu ka mid yahay wax yar buu inaga yar duwan yahay codka anyway garad soo koob insha Allah bal nimankan aan dhageysanayna waxa hayaana kale hadda may maqashaa okay raalli ahow xogaa codka iga gale markaad aragto deegaankeena eeg tusaale kaaga soo qaadaya nin baa la shaqaalaysiinaya automatically society-ga Sam adaa ku xiga ballan way waa adiga okay society-geena meesha uu ka soo jeedo xaggay kala talin lahaayeen inuu noqdo nin dalkiisa iyo dadkiisa wax u tara ayaa waxay dhahayaan war annaga kulli waxba kaama rabnay bal adigu un ka taajir adigu un wax ka qab macnihiisu iyaga laftigooda iyaga bormuud garaynaya musuqi taasi waa dhib aynu wada leenahay laakiin if haddii ay anagu aan hal qof bedeli karno dan waxaan bedeli karnaa 5 qof oo kale 5 qof 10 qof bay bedelaysaa that 10 can change a whole people 100 people 1000 people and then forever if aad baan u mahadsan tahay garad waxa weeyaan dadkanu waan ka hadlay maya anu waan ka hadlay garad dadkan fiiri nobody cannot change qof bini aadan uu bedeli karaa ma jirto dadkan waxa lagu bedeli karo waxa weeyaan waa inay helaan system wanaagsan helaan waxna bartaan intaan baa lagu bedeli karaa taana ma dhacayso way adag tahay sida lagu helo no if we can change if you can change me then you can change a people if you can change 100 you can change 1,000 let's believe that and aminu taasina amina ka jeclaha inayna ayo garad insha Allah ayo garad aad baan ku salaamaya codka kaaga go'aya anigana charge ayaga sii dhacaya laba qof baan soo qabanaya hello
ورسمتر واضح وكقع يوسف بل نكنا ما أنت قن السوق بيقول ريه قد نكنا ما سوق بان كره بدي نكنا ما سوق بان كره خليف على النور خليف على النور خليف على النور أوي خليف على سوق بل صامة ويسوق بالوحير أدور نكنا سوق بسمايو أمام سوق وانا خليفة على النور خليفة على النور ومشي ذا ومشي ذا خليفة على النور وأنا سوق بتاع ربا خليفة على النور ومشي ذا وحنا مالنا يا خد ليسكو سنة يوتشرين كعنت مركان سوق بتاعنا وديده يا خليفة على النور أنا بقول عليه هذا مركله okay that's biggest problem سام عنده مسوتات براوي منك هي ايغا جرى دينيو ilaahay ayaa yaqaana sam waa xanaaqsan yahay baan malaynayaa wuxuu rabaa sam on soo qabanayaa laakiin khadkii baaba ii geli laaba ninkan ii geli laa nin baa meeshan ku jira ninkiina khadkii uu geli laa yahay qof kale inaan soo qabto weeyaan aawe yaa kala soo qabsaday hadda gacanta soo taaga sam kuma jeedee war aawe dee khaliif cali nuurki خلينا على النور ما بتشوفتها ميو أول دي دتكي الله تنقف بمشي كتير إننا ما سوق بنكره أوكي قف كنا كده يا إيش ما أنا نقف ماشي خسارة سوي قف كلا وقف صدا صار سام gacanta imadan soo taagan gacanta imadan soo taagan soo qaadana kuma soo maxaa buraale axmed laangoobe qorxay waligay magac badan ninku war soo dhawo bal alaykum salaam aad iyo aad baan ku salaamay waan dhowahay barnaamijka kolley laba haysta laakiin haddaan kugu soo biiray laakiin aniga toobagaygu wuxuu ku saabsan yahay dowladda meesha ka jirta ee magacyaalka ma garanaysaa fadhiidka gama ogaadeen ku fadhiya laakiin aan matalayn magaca ogaadeen boolka ee laisku dul ma garanaysaa lagu dul maamulanayo ee wiilka yar ee sanka gaaban uu ku dul maamulanayo ayaan ka hadlayaa anigu waan gartay sidoo ku ogaatay in dawladdu aysan awood lahayn oo markuu hadlayana markuu hadlayana ka hadlaya un cabdi baasin okay waan gartay soo sameeyay Djibouti waxaan ku weydiiyay soddon iyo ma intaas dawladdu ku dhaliirsantahay mise wax kale hello waxagee weey كان حاكم راوي قولدي ورن إلهي يا يغان ورهذا الدبابة أنا هيستوى ولقينا مدد وما نح خليفة على النور هذا مساقطة خليفة هذا شفتي السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. من مقشاه وانكم مقلا سولو aad baa khadar u dhawahay muuna kuma jeedo meel baan ku jiraa
aad baan kuu salaamayaa barnaamijka waan la socday hadalka inta muhiimkuun baa laga sheegaa marka dalkii dadkii waa la inta muhiimka noo sheeg intan muhiimka waxa weeyaan walaal dalkii iyo dadkiiba waa la haystaa kow Mustafa Cagtar waxaan la okay su'aal baan rabaa halka inaad horinaan ka weydiiyo aye wadankeenu nuxur buu ahaa waagii hore wadankeenu waagii hore Tigray ha haysto laakiin gumaadkan iyo dilnimadan iyo su'aal baan rabaa inaan ku weydiiyo waagii hore wadankeenu xor miyuu ahaa mise ma ahayn wadankeenu waagii hore xor ma ahayn laakiin sidan way dhaantay waan gartay say ku dhaantay sidan bal noo sharax sidan waxay ku dhaantay urdooxan iyo cawaantan la soo daayay iyo balaayadan iyo qolatigan qaxootiga jooga iyo dadkan maxaan ku dhahay la ugaarsanaya ma jirin macnaha qolaji iyo dhibaatada dadka lagu hayo ma jirin baad leedahay waagii hore ma jirin laakiin Tigraygu si farsan bay inoo leyn jireen oo inoo gumaadi jireen kuwii jeelowgaadeen ku jiray ka wada kuwa waxa weeyaan dhibaato lagu hayay taas khalad bay ahayn maana taageeraynin laakiin maanta kun jeelowgaadeen baa jira oo la sheegaynin oo hoosta dadka laga xidhxidhaya oo maxaan ku dhahay dulmiga maanta jira ka weyn dhibaatadii jirtay shalay waa gartay marka Mustafa Cagtar laftigiisa waa xabsi guri ku jiraba oo free hal la dhaha laftigiisa soo ugu jira soo ninka diyaaradda raacay aad sabay aaday ma soo ugu jira waa loo yeedhinayaa rifalaalka ma booqan karo Addis Ababana wuu tagi karaa markii loo yeedho soo xabsi guri ma aha macnaha referalka hospitaalka aad leedahay ma booqan karo Addis Ababana wuu tagayaa ta kale waxa weeyaan maamadii hooyada ooyeysay maanta wiilkeeda u ooyeysay ninka yidhi waa beenaley haddee wax laga sugiyo ma laha buu aqliyaa xagee uu keenay waa beenaley haddee wuxuu yidhi maxaan ku dhahay cabdi laba jir dilan buu yidhi xagee uu keenay waan dhegaysanayay haa ma Facebook aad ka dhageysatay mase television maya haddaan dhegaysanayay qofkii iga horreeyay ee ku jiray lahaa cabdi oo la jir dilay ma jiro dastuurka Ethiopia warniyo ilaahay yaa yaqaana warheeda haddii qofkani ma aha Mustafa Cagtar ma ahayn qofkii iga horreeyay Mustafa Cagtar ma lahaynaysaa ma aha khadar ma aha macnaha ifahamtay wax maanta hooyo maanta wiilkeeda qada u sii qaaday oo isagoo la dilaya aragtay in la dhaho waa beenaley waa ceeb aad u weyn midda kale Soomaali Maxamed oo dhan haddii adu wax waa gartay Soomaali Maxamed oo dhan baa maanta ka kacday dulmiga waa beenaley waa sax waa khalad cabdi Soomaali oo dhan baa u kacday inaga xukumanayna haddaan xukumanayno oo jigjiga maxaan ku dhaha keensanayna laakiin maanta waxaan ku ogahay inay xitaa maxkamaddii Haag ay CMC free leedahay haddaan galayaa Yusufa ma gelin waayahana Mustafa Cumar haye wada maxkamadda Haag xitaa inay leedahay maanta CMC free waayo 70 sargaal oo Ethiopian ah oo dambiilayaal oo dadka leynaya Addis Ababa dhex jooga ma garatay kuwii dambiilayaasha maxaan ku dhahay heegada u weynaabaa jigjiga dhex jooga oo qaar laga dhigay guddoomiyayaasha baarlamaanka waa gartay marka in khiyaali lagu noolaado ma aha gabadha maanta caawa ma soo adeegan karto iridii waxaa u taagan askari federaal u taagan oo boolisa masaajidkii laguma soo tukan karo xornimada xaggay joogtaa la sheegahayo niyo anu wadankan waan la hadlaa wax dhib oo weyn oo la ii sheegayna ma jirto runtii markaan ka hadlo si daacada markaan u hadlo ma fahamta waxaa la ii sheegay wadanku inuu iska nabad yahay dhibaatooyin way jiraan laakiin dadku ay xoogaa dareemayaan relief ay dareemayaan ma garat waa runtaa dhibaata ma jirto markii macnaha kumaad macnaha safan baan laysu marinaynin marba iridii haddaan loo baxaynin jaamacadihii la aadaynin waddooyinkii free ahayn habeenkii 2 saac markii la gaadho dadka sacabada la isugu garaacayo sidii dhargigii dadkii ay kala xaroonayaan maxaa yaala meesha waxa weeyaan Mustafa free waa in la dhaho cabdi keliya ma aha waa in Mustafa laftigiisa free la dhaho xabsi guri buu ku jiraa
واقر marka والله waxa weeyaan waa layna haystaa innagoo dhan في marka waa in هذا dadka loo kaco في هذا بيان سوق بسنة سي هذا صاحب marka cabdi hooyadii baaba qaday u geysay maanta yaa u geeyey mustafa maxaan ku dhahay yaa isaga xaaladiisa war u haya ma hadli karo ma waxba ma sheegi karo dadka la leynayo ma booqan karo marka qof intuu iska soo galo inuu iska naacnaacsado waa laga fiican yahay oo qof dhan oo hooyaa uu aflagaadeeyo marka kulligii waxaa soo wada qortaan mustafa firi soo qora xabsi guriba ku jiraa hataa raalli kama in madaxweyne laga dhigo raalli kamuna ahayn oo waxa weeyaan waa lagu qasbay inuu madax noqdo sababtay tahay wallaahi bilaahi beenidii ma sheegahaye isagoo diyaarada raacayaa loo yeedhay oo la yidhi kaalay maxaan ku dhahay madaxweyne lagaa dhigayaa madaxnimada xitaa waa lagu qasbay mustafa muna rabin marka xataa waxaa marka laba waan soo gabagabeynayaa laba eray baan ka xanaaqaa markii la dhahayo mustafa madaxweynaha kusiisimaha sida loo sii bahdilayaa igu daran ee loogu dhaga hadlahayo marka waxaan leeyahay mustafa free cabdi free waddankuna free mustafa waa in loo doodo laftigiisa xabsi guri buu ku jiraa ma hadli karo adiga kuma hadli karo ani ima hadli karo wax dan iyo dal uu dad ugu maqan yahay ma laha aadna waan kuu salaamayaa walaale سلام الله aad baan kuu salaamayaa walaale adaa mudan akhyaarta sharafta leh waxaan idin leeyahay inta aad barnaamijka la socoteen waad ku mahadsantihiin waxaan u jeedaa in meeshan la isku eriyanayo hadda oo howlo badan ay ka socdaan anigana waqti badan ma sii hayo waan idinka tegayaa aad baan idin salaamayaa runtii ma ahayn qorshahayga inaan soo galo waxaan usoo galay oo keliya wuxuu ahaa bal update yar inaan aniga laftayga u helo ya marka waxaan rabnaa wax dowladda taageersan baan rabnaa dowladda labada nin ugu dambeysayba dowladda meel wallahi labadii ma ahayn ha labadii qof dowladda taageersan wuu hadlay qof dowladda taageersan ma jira dowladda qof taageersan anagaaba taageersan dowladda anaa u hadlay laakiin cadaalad maaha anuu inaan u hadlay qofka dowladda taageersan ma jira ya ma jira bal ninkanaan soo qabanayaa niyo ninkanaan soo qabanayaa iiska dee inaad yaro kuma soo qaban karo gacanta miyaad soo taagatay 100 mar baan kuu sheegay I don't see magacaaga uma jeedo ninka la yidhaha Sam wallahi uma jeedo hay wareerinin maanta ka hor waagii hore waa ku soo qaban jiray inaad yaro maxaan kuu diidayaa waan kusoo qaban lahaa kuma jeedo wallahi Sam ma fahanta dee kuma jeedo gacanta adoo soo taagta kuma jeedo alla yaa yaqaana kuma jeedo gacan adoo soo taagta kuma jeedo inaad yaro ma fahantay kuma jeedo maxamed cumar sulaykha mushtaaq intaasaan arkaa axmed nuur cusmaan ma fahantay ani ayaa taageersan ma fahantay intaasaan arkaa kuma jeedo mukhtaar baan soo qabanaya mukhtaar baa dowladda taageersanaya mukhtaar gacanta soo taago waayahe gacanta soo taago sulaykhaan soo qabanayaa sulaykhana war dadkii baa ka buuxa meesha waa dagaal baa la ila soo aadayba dadkii uu iswada eryanaya saacadan okay sawirada inaan wada fiiriyo wey wax cagtar u eg inaan soo qabto wey kanaa cagtar u eg markanaan soo qabanayaa kanaan soo qabanaya kanaa cagtar u eg siaan kusoo gabagabeynaya wallahi dhiklaan wala laftiisii baa ugu malayn okay anyway inta aan tegayaa maalin wanaagsan iyo habeen wanaagsan hawl badan baad dhaafiseen caawo muunaan soo qaban lahaa muunaa u xiisayba salaamullahi inaad muuna aad baan idin salaamayaa laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego hal arrin ah arrintaan rabaa inaan idiin sheego waxaa weeyaan siyaasadda aad cadiifadeeda iyaysan iskula tegina waxaa weeyaan dadkana meeluu kala tegayo ma jirto dadkana waa hal arrina
cabdi maxamed cumar iyo mustafana labadaba anu waxaan aaminsanahay inay hostage yihiin runtii markaan ka hadlo waxay u yihiin hostage policy bay system bay hostage u yihiin waynu guuleysanaynaa akhirka insha allah dadaala intaasaan idinkaga tegayaa inta aan mar kaleeto ka kulmayno waayahan ma soo gelin 2 isbuuc meelahaas haddana ma geli doono aniga laftigeyga free ma ihi aniga laftigeyga idinla hadlaya free ma ihi idinkina free ma tiidin xaqiiqda ogaada as long as qof dadkiina uu wadankii joogo free ma aha hal qof oo xora ma jirto as long as uu qof wadankaaga joogo free ma aha xaqiiqdu taas weeyaan marka aad baan idin salaamayaa liibaan inaad waa idin salaamay marka waxaan leeyahay ilaahay free ha idin ka dhigo war gabadhan khadra suleekha inaad suleekha raalli iga noqo inaad xamdo cumar 2 mar baan isku dayay inaad adigana kusoo qabto mar kale aan kusoo qaban doonaa aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaan idin leeyahay guul baan idin rajeynayaa iyo gobonimo dadkeena u duceeya dhalinyarada waxbara hooyooyinka meesha ku jira carruurtiina waxbara dhalinyarada meesha ku jirta aniga isbedelkan wadankeena ka dhacay wuxuu ii yahay cashir aad u fiican buu yahay runtii waxyaaba badan baana ka bartay oo aad iyo aad u badan baan ka bartay waxaan ka bartay wadankeena 4 magaalo oo ku taala dadka ku nool ama beelaha ku nool iyo dhaqamadooda iyo siday u fekeraan iyo attitude-kooda iyo marka uu galo wanaag uu galo siday ummadda kale oola dhaqmaan ama markay xumaan galaan ummadda kale siday oola dhaqmaan ayaan ku bartay waxaan aaminsanahay inuu isbedelkan wadankeena ka dhacay inuu experience fiican ay ahaa khibrad aad u fiican ay ahaa waxyaabaha aan ka bartayna waxaa kamid a sheekooyin aan hadda ka hor maqli jiray oo fara badan oo kala duwanaa oo aan evidence u lahaa ama caddayn aan u lahaa oo xaqiiqo noqday yaan ka bartay meeshan la yidhaahdo wadankeena aan ka bartay waxaan ka bartay dadkeenu human quality-ga ay ku nool yihiin ama waxa la yidhaahdo social contractigoodu inta uu dhan yahay ama qualitygoodu inta uu dhan yahay ideolojiyadda waxa u ah caqiido waa ay aaminsan yihiin qabyaaladu heerka ay ka taagan tahay waxyaaba badan oo noocaasaan ka bartay dadkeena isbedelka wadankeena ka dhacay waxay ahayd a good experience bay ahayd khibrad aad wanaagsan bay ahayd aniga familkeygaan bartay qabiilkeygaan anu bartay xataa wax kale iska daa aniga jifadeydaan bartay qabiilkeyga jifadiisaan sii bartay samagan marka magaalada aan ka imid ee qabardaarina si fiican baan u bartay shucuubta ku noola iyo beelaha soomaaliyeed ee ku wada nool meesha ehelka ah dhagax buur si fiican baan u bartay jigjiga si fiican baan u bartay waxyaabaha iila yaabka badnaa waxay ahayd aan arkay in odayaal 80 sano jira iyo 70 sano jira ay canjilaan cabdi maxamed cumar hooyadii ay canjilaan waxay taariikh ii dhamanayd baa ahayd runtii odayaal 80 sano jira 70 sano jira inay canjilaan video inta iska soo duubaan ay cabdi maxamed cumar hooyadii canjilaan oo iska dhigaan oo baroortaan history ii dhiman baa ahayd taariikh ii dhiman baa ahayd runtii taariikh cajiib ay ahayd mana moodaynin dadkeenu inay heerkaa gaarsiisan yihiin qaarkood mahad welibana dee dhalinyaradu iyo shabaabka iyo facebook isaga jira de wax walba waa ka dhici karaa laakiin odayaal cero leh ismaa inay heerkaa gaarsan yihiin waxaan la yaabanayn xilligii cabdi uu joogay odayaal cero leh oo qaarkood waxyaabaha qaarkood ku hadlaya isma garan yaan la yaabanayn laakiin kuwa haddana kuwaas waxaaban ugu dhihi jiray cabdi baa qasbaya laakiin kuwan yaa qasbaya ila kuwa xilliga cabdi waxaan dhihi jiray cabdi baa qasbaya odayaasha xor maahan dhihi jiray kuwan yaa qasbaya marka ila waan ognahay kuwan wax qasbaya ma jirto maamul qasbaya ma jirto yani garashadu ummadeenu heerkii ay ka gaarsiisan tahay it was a good lesson for me runtii cashir aada wanaagsan bay ahayd soo gal
waxay taasi ibaraysaa aniga waxay ibaraysaa taasi inay human quality-ga waddankeena ku nool inuu yahay dad daciifa uu yahay whether daciifnimadaasu ay ka yimaado product of colonization or the product of DNA inay tahay sangan inay product DNA ay tahay ama product ay colonization tahay I don't know ma garanayo laakiin the factiga waxaa weeyaan isbedelkan waddankeena ka dhacay critically u fikira maxaad isbedel oo ku aragtay oo weyn oo maxaa macquulad ku aragtay ani wax badan baan ka faa'iiday runtii wax badan baan noodna ku qortay oo qoraal ahaan u qortay soomaa oo qoraal ahaan nood hist aan u qortay I hope waxaan rajeynayaa ilaahay wax khayr qaba inaan dadkaas helaan aad baan idiin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu inta aan mar kaleeto hawada ku kulmi doono busy baan iska noqday sidii hore anigu iskama ihi life kaygu iska yaraanayaa anyway waxaan leeyahay habeen wanaagsan maalin wanaagsan inta maalin u tahay inta aan mar kaleeto kulmaynana sidaas iyo khayr baan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu